haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedan dhammaan anoo dhexdhexaadinaya dhacdada maantiya jacaylka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta ku xidhan berbera tuunis waa mar kale iyo barnaamijkeenii codka tolmoon oo maanta inoogu marti tahay maftuuxa carab. maftuuxa carab koley janalka iyo aniga wadanku cusub tahay waana maalintii ugu horreysay inaysa soo hor fadhiisano. maxaad leedahay asxaabta ku xidhan janalka berbera tuunis? bismillaahi raxmaan raxiim. asxaabta horta marka hore waan salaamaya meel kastay joogaanba. waxaana leeyahay waa markii u horreysay meel ka soo qayb galo ama mikrafoon qaato oo aan istijaabinayo macnaha. kolley waan sheegi doonaa insha Allah. asxaabta ku xidhan janalka berbera tuunis waa mar kale iyo kulanti wacan. koley tole haddii aad tahay qof nagu cusub subscribe tamasar haddii aad hore loona joogtayna like-ta iyo sheerta wixii taliya tusaalaada komitiga nagu reeb. sidaan hore nagu sheegnay barnaamijkan waa barnaamij furan qof kastoo cod haya ama bilaa muusig ku heesi karaya uu furaya barnaamijku maftuuxa carab. koley tole waa sidaan hore kuugu sheegay dadka waad isku cusubtihiin xataa la janalka waad ku cusub tahay. koley magaaladaad degan tahay waa berbera kulanti ahaana maanta iskugu keen horeysa. bal adigo asxaabta isbaraya maftuuxa carab waa tuma. maftuuxa carab waa maftuuxa carab marka laleeyahay maftuux waa maftuuxa laakiin maftuuxa waa tuma halkii isharaan deegaan ahaan soo joogtay nolosheeda halkay kusoo dhammaysatay halkay iminka ku soo socotay intaasoo dhan. bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa maftuuxa carab maxamed qaalib. waxaa laygu aan ku magac dheerahay maftuuxa indho. waxaan kusoo barbaaray ama aan waxbarasho heerkii koobaad kasoo bilaabmay degmada laaskeel ama saa u taqaanaa degmada dacarburuq. iskuul hoose ilaa iskuul sare waxaan kusoo dhammaystay dacarburuq. berbere waxaan imaaday 2018kii. alxamdulilah rabbilcaalamiin. haddana wax jaamacada weli ma gelin laakiin waxaan ahay guri joog. maftuuxi sidaa inoo sheegtay waa asxaabta maftuuxi waxay kusoo qaadatay waqtigeeda ugu badnaa magaalada inoo sheegtay. iminkan inteeda hadhe waxay jeceshahay inay ku qaadato gobolka saaxil ama degmada berbera. maftuuxa kolley barnaamijkan asxaabta waxaan u sheegnay inuu yahay codka tolmoon. asxaabtii waxay isweydiinaysaa goormay heesaysaa goormaa la heesayaaba la isweydiinaya. kolley tooley waxaan jecel lahay bal heesta barnaamijka ugu horeysa ee jeceshahay inaad noogu furto inaad noo bilowdo. bismillaah. heestan waxaa la yidhaahdaa dhexdhexaadin jacayl. waxaa qaada mursal muuse cume fanaan aan aad u taageero halkan ka salaamayo. aan bilaabay insha allah. maxaan dhibta ka ilaalshay maxaan dadka ka dhawaystay maxaan qalbigaaga dhowray inaan qayrka ku dhaabsho maxaan isu dhiirigeliyey anoo dhayalsada dantayda maxaan taada ku dhameeyey haddii la isdhaami waayo wanaag lama kala dhexleen haddii la isdhaami waayo wanaag lama kala dhexleen anoo dhexdhexaadinaya dhacdada maantiya jacaylka dhagxumo kuu quuri maaye dhigaa ugu sharaf badnow maxaan ka dhulsuga jacaylka maxaan kugu dheel halaabay maxaan dhabta kugu heesay maxaan caashaqa dhankayga ka jiray dhaxan uga timaado anoo kugu dhaadanaya dhaliilo maxaad isaart haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedan dhammaan haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedan dhammaan anoo dhexdhexaadinaya dhacdada maantiya jacaylka dhagxumo kuu quuri maa
dhiga 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 uga sharaf badno laa ilaaha ilaa ilaaha ila allah laa ilaaha illa maftuuxa waan jira dhacooday gabdhi waan jira dhacooday waan kulinayow waa mursalayga agihiisiyo asxaabta waad aragtaan maftuuxa kulli tooleydee waxay inoo soo bandhigtay hees kheyr macquul oo anaaba jira dhacooday inaan dhexdhexaadinayo baabalmoodaba laba qof iyo jacayl anigay hayay kawdhi maftuuxa kulli toole maftuux way iskeen bartay asxaabta ku xiran janalka waqtigeeda ugu badanna halkay kusoo qaadatay way iskeen bartay maftuuxa waxaa tahay qof cod macaan welibana ilaa xaj cod macaan ma jeceshahay fan iyo fanaannimo inaad noqoto kulli fan oo dhan marka fan la leeyahay hidiyo dhaqan waa fan sugaantu waa fan heesidu waa fan waxba waa wada fan kawdhi laakiinse ma jeceshahay inaad heesaa noqoto amase aad muusig ku heesto dabcan wallaahi haa markii anigu aan yaraa oo kale aad baan u taageeri jiray haddana aan joogana aad baan u taageeraa inaan fan noqdo laakiin anaaba cabsooda waxaa isdhaa malaa fan ma noqon karaysi ma dee geli karaysid oo ma tihid malaa qoftee heesi karaya anigaan islahaynba laakiin imika insha alla dee kolley wax walba dhiirigelin bay leeyihin maaha kolley haddii aan dhiirigelin helo dabcan maftuuxi waxay inoo sheegtay inay jeceshayna xataa fanaanad noqoto qof kastoo hami iyo hididile iyo hadaf leh insha allah waxaan jecelnahay inuu ilaahay hamigiisa oo rumeeyo shakhsi kastaana halkii uu nolosha doonayay inuu ka gaadho waxaan jecelnahay inuu ilaahay ku simo maftuuxa waa saad noo sheegto waxaad noqon lahayd fanaanad fanaannimadiina kolley heese badan baa laguu dhiibayaa ama jacayl ha noqdaan ama cay ha noqdaan ama dhaliil ha noqdaan ama ammaan aad ammaanid kale ha noqdaanba heeseebaad jeclaan lahayd inaad qaadato haddii aad maanta fanaanad adoo ahba iska soo qaad heeseebaad jeclaan lahayd inaad ku luuqadayso wallaahi waxaan jeclaan lahaa horta heesaha calaacalkaa maaragtay aad iyo aad heesaha calaacalkaa baan aad u jecelaho aad u taageera meelaha marka jooga xataa asxaabtayda waxay igu tiraahdaa jacaylka horta maanu kaaba bixinba markasta sagaashanka ku aragnaba waa calaacalaysaa dee adigaas ku mashquulsanba inkastoo dee yaala markasta dee aan jeclay wallaahi inaan heesa calaacalayska qaaday isagoon xataa anugu aan farandis lahaynba oo jacaylaan lahayn ayaan haddana iska jeclaan jiray inaan ana heesa calaacalkaa qaado iyo heesa magaranaysaa murugada iyo waqtiyada qaar maftuuxa qalbigeeda waa xeradii jacaylka waa saa la oran karayno imkaan saamii soo baxsatay maftuuxa ma jeceshahay hees aad xiisayso oo aad mar kastoo jaanis leedahay ama waqtiyada qaar aad jeceshahay inaad ku celceshato ma jirtaa ma noogu luuqayn karaysaa bal way noo bilow jacayl eebadiisa unugyada jidhkaygiyo iga naban wadnaawo urugtiisiba nabar cagku igu abuurto urkankooya iliniga awood badan baybaqtiqayso afku juuqu ma odhan karo aamuskanka doorbiday allayleh cataabayo unuglaaday cadowgii haddeen halkaa kusoo dhaafno heestii labaad ee barnaamijkeena iyo maftuuxa aqoonteedii iyo halkii ay kusoo barbaartay iyo waqtigeeda ugu badan halkii ay kusoo qaadatay kulanti wacan markasta waxaan asxaabta ogeysiinaynaa in ay haddii aad hore noola joogtay liketa iyo sheerta wixii taliya tusaaleana commentiga haddii aad nagu cusubtayna waan kusoo dhaweynanaa subscribe noo saar baan ku leenahay kolley tolada dhib kuguma hayso lacagna kuguma qoraysa halka cas naga cadeeya waa jaaniskii ugu dambeeyey barnaamijku wuxuu ku dhow yahay guntii iyo gabagabadii maftuuxa haddii aan maanta mikrofoonka kuu dhiibo oo aan jaanisku siiyo iyadoo aanan heestii ugu dambeysay barnaamijka gaadhin halkayaad ka salaami lahayd isayaad jeclaan lahayd inaad halkan ammaan iyo dee iyo mahadba uga dirto
horta dhammaan faamligayga waan salaamaya. Hooyaday macaan aad u jeclahay, ayeeday hooyaday dhashay aad iyadana aan u jeclahay, aabbahay macaan oo ka maqnay meeshaan aad u jeclahay, walaalahay dhammaan asxaabtayda meel kasta joogaan waan salaamaya. Asxaabta waan salaamaya meel kasta joogaan. anana waan kula salaaminaa kulli goobtan aan ku suganahayna inantays kale waan salaaminaa Nimco Cabdixaaji iyo Ismaaciil Caalin Cilmi oo kabiir ku magac dheero isaguna ka fogeyn kamarada iyo walaashii Farax Saciid Cumar aad baan u salaamayaa waa heestii barnaamijkeena ugu dambeysay welibana maftuuxa qaawo maanta iigu marti barnaamijkan iyadana aad baan u salaamayaa maftuuxa waa heesteena ugu dambeysay barnaamijka waxaan doonayaa hees ilaa inta ku daawanaysa ilaa anigayga ilmaysiisa kawdhi ma jeclayn inaan codkaaga sida nugu caajiso laakiinse kule waqtiga ay nugu yar waxaan jeclaan lahaa inaan inugu noqon maalintii iskuulkeen dambeysay haddii ay tahay maalintii iskuulkeen horreysay waxaan jeclaa inaan noqon maalintii iskuulkeen dambeysay waxaan jeclaa barnaamijka heesta ugu dambeysay inaad inoogu soo xidho insha Allah. bismillaah heesta waxa qaada hees qaraami way laakiin hadda iid la yara soo cusboonaysiiyay waxay tahay lillaahi baan ku ahayo lillaahi imaad noqonaadigu laba ruuxoo isjecelo laysku xataanahayne libaan male adduunyadu laakiin kama filaanayn lama amaanin erayadaadii waxaan la ooyaa lagama maarmo walaalnimo lamaa xujeeyo qofku jecel lama ilaabo barashadii macaanayd laxawga caashaqa kama ladnaanin laabtaan kugu hayaa weli igataa lugooyada la'aanta maladaye xubbi loola badanba muddo badan ilaa simay lamaanoo israba oo lagu hirtanahayne igadaa lugooyada la'aanta maladaye maasha allah maftuuxa waama jiro cod anu waan aamusay maalin dambe horta barnaamij dambe aan meel ka soo heesiyaa maba jirto asxaabta ninkan u sheegaya barnaamij dambe aan meel ka soo heesiyaa maba jirtaba maftuuxo kalaaba qarsoone kulli asxaabta barnaamijka guntiga gabagabadii waana heestii ugu dambeysay barnaamijka markastana waxaan ku boorinaynaa asxaabta ka xiran channelka Berbera Tunis haddii aad hore doola joogtay like iyo share iyo commentiga wixii taliyo tusaalaha haddii aad nugu cusubtayna aad baan kuu soo dhaweynaynaa markastana waxaan jecelahay barnaamijkan waa barnaamij furan barnaamijkan kulli uu soo gabagaboobay waxaan jecelahay inaan intan iyo in ka badanba barnaamijka soo badino cid kasta oo codad bilaa muusiga ku heesi karaysana waxaan jecelahay in ay ka soo qayb gasho barnaamijka iyo channelkaba cidna tooko umaha qof gaarano uma samaysna channelku waxaan jeclahay intaa in ka badan bayna nala sii joogto intan waxay naga tegnaa sidaas iyo maca salaama